السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا فيديوغان انت دابان channelka ii subscribe garee. intaa ka bacdi maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan waa maxay hadafka Itoobiya iyo Kenya ay ka leeyihiin wadanka Soomaaliya. sidaan ognahay wadanka Itoobiya waa dal aad iyo aad u baaxad weyn mana lahan bad iyo xeeb toona. sidaa darteed badda Soomaaliya oo cidlo iska ah ayaa hunguri ka galay inuu iska maamusho khayraadka badda ku jira. sidaan ognahay wadanka Itoobiya waxa uu maamulaa gobolka Soomaali galbeed inkastoo hadda ay ka jiraan ismaamulo. waa dhaweyd ayaa waxaa dhacday arrin la yaab leh waliba dalka Itoobiya gudihiisa. arrintaas oo ah in dalka Itoobiya uu sameystay ciidanka badda isagoon lahayn wax bad ah iyo xeeb toona. taas oo micnaheedu ay ka dhigan tahay inuu yahay nin handadayo badda Soomaaliyeed. sidaa darteed waxaa noo cadaatay in hadafka kaliya ee Itoobiya ay ka leedahay dalka Soomaaliya uu yahay in ay helaan bad ama xeeb ay kala soo degaan ganacsigooda si looga aqoonsado dunida inteeda kale. halka Kenyana ay ka handadayso Soomaaliya dhinaca shidaalka Soomaaliyeed waxaa isku dayay inay qaataan Kenya inagoo dhooban, halka siyaasiyiinteennii iyo maamul goboleedyadii iyo dadkii shacabkii iyo ganacsatadii ayagoo dhooban la isku dayayo in la qaato shidaal Ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey. gaar ahaan annaga Soomaalinimadeenii way dhimatay. sidaa darteed tala ahaan waxaan idiin soo jeedinayaa in aan ka dhacsano dalalka deriskeena ah xoolo iyo khayraadka oo Rabbi subxaanahu wa tacaala ku manaystay dalkeena hooyo. maanta labadan wadan oo aan ka hadlayno mid kasta waxa uu guumeystaa ama uu maamulaa ama hoos yimaada gobollo ka mid ah Soomaaliya, halka Kenya ay guumeysto gobolka NFD, Itoobiyana Soomaali galbeed. in ay guumeystaan gobollo Soomaaliyeed oo kaliya kuma eka, laakiin waxay rajeynayaan ama hadafkooda fog ee mustaqbalka uu yahay in ay gacanta ku dhigaan Soomaaliya gebigeedaba ama ay afgambiyaan. ayaan dhaweyd ayaa waxaa dhacday in ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya uu shir kula qaatay magaalada Muqdisho Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha Soomaaliyeed waliba hadda. wuxuu yiri ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, sidee inagoo 40 milyan oo qof ah u ahaan karnaa bad la'aan idinkoo 12 milyan oo qof ahna aad u leedihiin bad. waxaan u maleynayaa inaad shirka la wada socoteen oo hadalka ka yiri ra'iisul wasaaruhu, laakiin haddii aydan xataa la socon bal wax yar maskaxdaada gadaal celi. waxaad tahay ruux Soomaaliyeed oo caqli iyo maskax iyo karti leh, bal hadalka ra'iisul wasaaruhu yiri maxaad ka dhadhasan kartaa ama aad ka fahmi kartaa adigoo adeegsanaya caqligaaga, halka Kenyana ay soo handadayso shidaalkeena inagoo xaadir ah. maanta mowduuceena intaas ayuu noogu egyahay. mowduuceena xiga waxaan kusoo qaadan doonaa Soomaalida degta Kenya. fadlan videoga haddii aad daawatay channelka subscribe garee, like iyo share iyo comment si aan u helno dhiirigelin una soo gudbino macluumaad.